halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo barteena internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad inaga maqlaysaan waa subax isniina 8 bisha Juun sanada 2020 arrimahan barnaamijka saaka idinkugu haynana waxaa kamid ah inta badan xubnaha dawladda hoose ee magaalada Minneapolis ee wadanka Mareykanka oo ballan qaaday inay kala diri doonaan waaxda booliska ee magaaladaasi halka wali dibadbaxyadu ay sii soconayaan ayaa xifradlayaasha Soomaalidu waxay ku doodayaan waxaan guwaabinayaa dadkeena Soomaaliyeed inay ka dhaadhacsiiyaan caruurtoodan ay fahansiiyaan in ay yihiin dad madow ah inay u istaagaan cadaalad darrada meeshan ku jirto oo u istaagayna waxay naga caawinaysaa inaan ogaano anaga cadaalad darrada haysato dhexdeena xayiraadaha socdaalka ee ka dhashay fayraska corona oo saameyn dhinacyo badan ku reebay ganacsatada iyo dadka caadiga ah ee xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab xeradan wuxuu yaal xeradaas loo qaadan jiray haday qudaar noqoto haday dhar noqoto haday bagaash noqoto wala kala adeegan jiray haddana waxaaba dhacdayba maaragtay bulshada badeeca iyo ganacsi hadii qofkii halka qofkaaga ku dhinto oo corona xataa haayo inaadan booqan karin oo la socon karin oo aad loo kala xayiran yahay dhibku sidoo kale waxa uu soo gaaray dadka naafada ee Soomaaliland warbixin ayaan umuurtaas idinkaga haynaa qodobadaas iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Xasan Cali Geela anigoo Aftaax Ibraahim Cagaarna in la socodsiinay balse marka hore barnaamijka waxaanu ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Cabdiraxmaan Xaaji Caddo oo gurigiisa jooga Cabdiraxmaan mahadsanid Cagaare xubno ka tirsan golaha Minneapolis ayaa ballan qaaday inay qaadayaan tallaabooyin ay awoodda booliska ku dhimayaan tallaabadaasi ayaa imanaysa kadib markii ay nin madow ah oo aan hubaysnayn oo lagu magacaabayay George Floyd ay booliska 2 toddobaad ka hor dileen 9 ka mid ah 13 xubnood ee golaha Minneapolis ayaa boqolaal mudaharaadayaal ah hortooda ku ballan qaaday inay hirgelinayaan nidaam cusub oo lagu sugayo ammaanka bulshada kumanaan shacab ah ayaa ka qayb qaatay mudaharaadyo nabadeed oo ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka oo looga soo horjeedo xadgudubka booliska iyo cunsuriyadda 10 kun oo shacab ayaa isugu soo baxay magaalooyinka Washington iyo New York mudaharaadka ka dhacay magaalada Washington banaanka hore aqalka cad waxaa ku biiray senator ka tirsan xisbiga jamhuuriga ahna musharrixii hore ee madaxweynaha Mitt Romney tifaftire ka tirsan wargeyska New York Times ayaa iscasiray kadib markii uu cambaareyn xoogan uu kala kulmay maqaal uu ka qoray xubin ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo ku baaqaya in magaalooyinka ciidamo laga howlgeliyo James Bennett ayaa qirtay magaalada maqaalka in uusan akhrinin ka hor inta aan wargeyska lagu daabicin dalka Britain ayaa sheegay dadka soo galaya dalkaasi inay iskood muddo 2 usbuuc isu karantiilayaan sida ay dhigayaan awaamirta cusub ee la soo rogay ee laga bilaabo maanta dalkaasi ka hirgalayo tallaabadaasi ayay dawladda ku sheegtay in loo gol leeyahay xakamaynta faafitaanka fayraska corona sharciga ayaa qabanaya cid kasta oo dalka Britain cirka badda iyo bariga ka soo gasha balse go'aankaasi ayaan saameynin dadka ka yimaada Jamhuuriyadda Ireland ugu dambeyn daraasad cusub ayaa sheegtay qofka oo waqti dheer xumaha ku fikiro inay qofka ku keeni karto khatar ah in dhimirka laga gala saynis yahanada ka tirsan jaamacadda London waxay sidoo kale sheegeen daraasadda ay sameeyeen in ay ku ogaadeen niyad jabka iyo walaaca muddada dheer ay keeni karto dheecaan maskaxda ay sii dayso oo sababa cudurka xusuusta qofka lumiya ee loo yaqaan Alzheimer ku dhaca oo ka mid ah cudurrada ku dhaca maskaxda bani aadamka warkiis waxnimo waa naginta aad ay u mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xaaji Caddo ayuu kaasi ah wararka caalamka nagala socodsiinaya gurigiisa halkaad kala socotaana waa BBC dhageystayaal diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka aynu ku bilownay sida aad warkaba ku maqlayseen inta badan xubnaha dawladda hoose ee magaalada Minneapolis ee wadanka Mareykanka ayaa waxa ay ballan qaadeen in ay kala diri doonaan waaxda booliska ee magaaladaasi arrintan ayaa timid kadib markii George Floyd oo ahaa nin madow ah oo aan hubaysnayn uu ku dhintay gacanta booliska arrintaas oo dhacday wax ka yar 2 toddobaad ka hor haddaba maayirka magaalada Minneapolis Jacob Frey ayaa waxa ku buuqay dibadbaxayaal ayna ka codsadeen inuu isaga tago soo bax balaaran oo booliska in kharashka laga joojiyo ay ku dalbanayeen Jacob Frey ayaa markii dambe waxa uu sheegay in isbedel uu taagan yahay hase yeeshee boolisku ay shaqadooda sii wadan doonaan haddii aad weydiinaysaan inaan taageersanahay isbeddel weyn oo lagu sameeyo qaab dhismeedka ciidankani oo dib loogu eegayo nidaamkan cunsuriyadda ahi jawaabteedu waa haa haddii aad weydiinaysaan inaan taageersanahay inaan sameeyo wax kasta oo karaankayga ah
oo lagula tacaalayo cadaalad darrada ka dhex jirta nidaamkani booliska jawaabteedu waa haa haddii aad i weydiisaan inaan taageersanahay inaan qabtaa wax kasta oo karaankayga ah inta iga dhiman muddo xileedkayga oo aan ku xaqiijinayo in booliska iyo nidaamka dhexdhexaadinta iyo sidoo kale shuruucda sababaya dhibaatooyinka gaar ku ah dadka madowga ah iyo kuwa kale ee laga tira badan yahay dilalka dadka loo geysanaya iyo sidoo kale dhibaatadan soo jirtay muddada qarniyada ah jawaabteedu waa haa balse waxaan diidanahay oo aan ka soo hor jeedaa in gebi ahaanba la kala diro waaxdan booliska dabcan taasina runta ayaan ka sheegayaa oo daacad ayaan ka ahaanayaa dhanka kale waxaa weli magaaladaasi iyo kuwo kale oo ku yaala waddanka Mareykanka ka soconaya dibadbaxyadii ka dhashay dilka ninkaas kuwaas oo aanan wax rabshada wadan iyadoo qaybaha kala duwan ee bulshadana iyo ay qoloba dhinaceeda u muujinayso sida ay uga xun tahay dilka ninkaasi iyo weliba sida dunidu ay uga dibadbaxi lahayd cunsuriyadda midabka ku dhisan dadkaas oo ay ku jiraan Soomaali badan sida uu ku soo waramayo Siyaad Saciid Saalax barxadda weyn ee ka soo horjeeda xarunta looga taliyo gobolka Minnesota ayaa waxaa si nabadaysan isugu soo baxay dad xirfadlayaal ah kuwaas oo ku shaqeeya qaybaha caafimaadka sida dhakhaatiirta kalkaaliyaasha iyo inta la midka ah waxay dhankooda kaga soo biireen dibadbaxyada cadaalad sinaandoonka ah ee ka socda dunidan galbeedka kuwaas oo ka dilaacay dilkii Minneapolis loogu geystay 46 jirkii madooba George Floyd adeegayaasha caafimaadku waxay siteen boorar ay ku qornaayeen erayo kala duwan oo shucuurtooda ay ku gudbinayeen sida tan nolosha qofka madoow waa muhiim cunsurnimo waa u caqabad caafimaadka midabta koorku waa u mushkilad caafimaadku waa in loo sinaadaa iyo kuwa kale dadkana Soomaalida ah iyo minority inaan united noqono oo aan ka qayb qaadano waxyaabahan oo kale waa Ayaan Xasan oo ah dhakhtarad baratay caafimaadka guud isla markaana leh goob caafimaad kana mid ahayd shalay dadkii qoraxda kulul isugu soo baxay taageeridda cadaalad sinaandoonka waxay ii raacisay sababta ay u timi iyo in midabta koorka booliiska lagala kulmo qura aysan ahayn ee uu jiro qaar lagala kulmo howlaha caafimaadka waxaanan u nimid maadaama aan nahay dad madow ah caafimaadkana ku jira in aan ka muujino meeshaan supportka aan u hayno dhibaatada lagu hayo African Americans iyo injustice ka jirta sida la socotaana justice ma aha kaliya in police brutality-ga caafimaadka ka jirta waxbarashada ka jirta housing-ka ka jirta dhinac kasta waa nala kala dagaalsan yahay Asha Maxamuud Sanay oo ah gabar baratay cilmiga shaybaarka caafimaadka ayaa iyaduna qabta si cunsurnimada loo yareeyo laga soo bilaabo guryaha iyo dhallaanka waxayna si gaar ah uga hadashay tan Soomaalida u gaarka ah marka waxaan guwaabinayaa dadkeena Soomaaliyeed inay ka dhaadhacsiiyaan caruurtoodan ay fahansiiyaan in ay yihiin dad madow ah inay u istaagaan cadaalad darrada meeshan ku jirto u istaagayna waxay naga caawinaysaa inaan ogaano anaga cadaalad darrada haysato dhexdeena qoysaskeena dhexdiisa ah nafteena dhexdeeda ah kabacdina dadkeena dhexdiisa iyo kabacdina waxa u qaadi karnaa banaanka sadaqada waxay ka bilaabataa guriga inkastoo badi habluhu bartaan cilmiga caafimaadka haddana shalay waxaa dibadbaxan qayb ka ahaa dhowr wiil oo Soomaali ah Maxamed Amiin Ismaaciil Jaamac oo ka shaqeeya qaybta xaaladda degdega ee cisbitaalka Fairview ayaa qaba in si cadaalad loo helo ay dadku xuquuqdooda bartaan caafimaadka waxyaalo badan aan la kulanaa marka insha Allah inaan dadaalno kulligeena aan ka warqabno xuquuqdeena aan dadkeena garab istaagno mar walba fiican marka insha Allah isku soo baxno aan garab taagno dad badan oo Soomaali ah xaliya waan gacan bidixin u ku socdo xuquuqda in barto waajib ardayda muslimiinta ah qaasatan gabdhaha xijaaban ayaa marmar la kulmi kara dhibaato u gaar ah qaasatan astaantooda xijaabka Farxiye Cali oo cilmiga daawooyinka ama farmasiga loo yaqaan barata ayaa qabta in dadka midabka leh ama hablaha xijaaban aan rabitaankooda looga hor joogsan baqdin ama faquuq kaasoo dad ka duwan ay kala kulmi karaan dadka oo kalarkayga haystaan
gabdhaha xijaabka xirtaan qof walba oo insha allahu tacaala oo filanayo in maxaa la dhihi jira caafimaadka uu la kulmo in aan maxaa la dhihi jira keerkayga aynan istaab garaynaynin maadaama ay yihiin kalarkayga iga gedisan yihiin diinteeda iga gedisanta ama reeskooda iga gedisan yahay waxaan rabaa inaan represent gareeyo qof walba oo Soomaaliya qof walba farmasiga aado waxaan rabaa inaan idin sheego insha allahu tacaala annaga waxaan wax u baranayna waxaa waaye inaan muujino biri markaa noo baahataan oo farmasiga aan noogu baahataan qof oo diintiina haysto dhaqankiina haysto oo midabkiina haysto oo luuqadiin idinkula hadlaayo inaad farmasiga kula kulantaan codkaana wuxuu dambeeyey warbixintii waryahayaga siyaad siciid saalax oo maraykanka inooga soo diray halkaad nagala socotaana waa b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba saacaduna haatan waxay tilmaamaysaa 7:11 waqtiga bariga Afrika bal markana xayiraadaha socdaalka ee ka dhashay fayraska corona ee safmarka ayaa waxa ay saameyn dhinacyo badan ku reebeen dhaqaalihii dunida meelba meel bay dhaantaay xiriyaha qaxootiga ee Dadaab ee dalkan Kenya oo markii horeba ku tirsanaa raashinka ay bixiyaan hay'adaha gargaarka iyo ganacsi iyaga u gaar ah ayaa haatan saameyn baan waxa ku reebay xayiraadii lagu soo rogay socodka xiriyahaasi ay boqolaalka kun qof ay ku nool yihiin hadaba Dadaab waxa mudaba ay ka gooneed Kenya inteeda kale haatan iyadii ayaa la kala xirayba haweenka ganacsatada ee xiriyahaasna dhibaato weyn ay wajahanayeen dadka kale caadiga ahba Saada Khaliif Barre oo ah hooyo 12 carruur dhashay ayaa waxay ka mid tahay hooyooyinka ganacsada xirada xagar dheer saameynta ay arintaasi ku reebtay waxa uga warantay wariyahayaga Kawthar Maxamed ganacsiga xagar dheer haddaan kaaga waramo wallahi ganacsi ma jiro horta meeshaan waxay ahayd meel oo haddii awalba iska xira qaxooto iska tabar yar arrinta labaad waxaa jirta maaragtay meeshaan awal haddii xero waxay ahayd kor ka xidhan oo aan dadku socdaal iyo waxba samayn karin ganacsigu way iska liitay dadku way iska tabar yaraayeen hadda arrintii karoonaha markii dalku kala xirxidhmay qaxootiga xeradan xagar dheero aan ani hadda kaala hadlay labada xero oo kale ma gudbi karno ma tegi karno meesha la yidhaahdo Dadaab oo nalaga xukumo hadda meeshii xeryaha qaxootiga laga xukumay ahayd xaaladdu aad bay u liidataa ganacsi maba jiraba waa la iska fadhiyaa wax ganacsi hadda xaaladdu way iska adagtaa bal ganacsigaaga wax yar noogu sheeg maxaad samaysaa ganacsigayga meel kaatinaan ku leeyahay meesha dhar baan gadaa sharaab baan gadaa cabitaan shaah baan gadaa ganacsi yaroo iska maaragtay waxaan ku noolaa dee naftayda aan ku maareeyay ilmahay xeryaha qaxootiga Kenya bandowga sidaad sheegtayba waxaa u dheer in xeryaha aysan isu gudbi karin qofka xagar dheer jooga uusan ifo u gudbi karin kan ifo jooga uusan xagar dheer ama Dadaab u gudbi karin marka maxay tahay waxyaabaha la kala adeegsan jiray xayiraada ka hor wax kasta oo ganacsiga waa la kala adeegsan jiray xeradan wixii yaala xeradaas loo qaadan jiray haday qudaar noqoto haday dhar noqoto haday bagaash noqoto waa la kala adeegan jiray midalan dhagaxley baa laga soo adeegan jiray ifaa la keeni jiray ifaa laga soo adeegan jiray xagar dheer baa la keeni jiray xeraba markaa wixii ganacsigu ku roon yahay xerada kale uu maaragtay u adeegan jiray haddana waxaaba dhacdayba maaragtay balisada badeeca iyo ganacsi haddii qofkii halkaa qofkaagii ku dhinto oo corona xataa haayo inaadan booqan karin oo laysu socon karin oo aada loo kala xayiran yahay oo maaragtay qofkii xataa hameenkii halka saac waa bandow haddaad xanuunsato inaadan xataa isbitaal tegi karinin ee aad uun meesha ku dhiman karto oo hadda ciidankii isu socodkii xaaladdu way adag tahay hadda way adag marka arrintan maxay tahay saameynta idinku yeelatay ka dumarka halkaa ku ganacsada ahaan maadaama xeryaha isaga kala gudbi karin wallahi kama sheekeyn kara xaaladda qaxootigu gaar ahaan xeradan aan anu hadda ka warbixinayo hataa ma aragtay oo waxaa kaloo ka daran oo hadda dhibaatadana haysato waxaa ugu daran bo aan ilaaway Kawtharay maaragtay ilmihii waxbay noo baranayeen koonfur baa ii jooga hadda aniga eid baa ii jooga saban baa ii jooga ilaa galaastu baa maaragtay iigu hooseeya taas waxa weeye ilmihii gurigay noo sugan yihiin online baa gudaha lagu bartaa Kenya sida aan wararka ama raadiyaasha ka maqalno annaga online ma haysano ilmihii imtixaanka hadduu yimaado oo maaragtay haddee dawladda imtixaankii loo fadhiisto ilmihii ay u fadhiistaan annaga ilmaheena wax barasho ma haystaan cunug wax baranayay iyo cunug aan maaragtay intaasoo bilood meel fadhiyayno haddee imtixaanka waxaan khasaaro wixii aan soo tabcaynay inay khasaaro yihiin un baan u malaynaynaa hadda aan sugaynaa inay noqoto ilaahay laakiin lagama quusto rajada ilaahay lagama quusto laakiin xaaladdu waa nagu adag tahay waa nagu adag marka imise sanaad halkaa ku ganacsanaysay
29 sano horta markii horeba waan iska xayirnayn oo qaxootigu iska xayirnaa sidaas kawsare la socdo qaxootigu socod ma lahayn oo xataa gaarsiga kamana soo adeegan karnay haddana wayba nooga sii dhammaatay oo hadda dhadhaab baaban ka adeegan kari la'aanay marka dawladda waxaan ka codsanaynaa in xayiraadana laga tafsiisiyo oo xataa waraaqa aqoonsiina la siiyo oo ma aragtay hadda xaalad adag taagan taasi waxay ahayd Saada Khaliif Barre oo u waramaysay waryahayaga Kawthar Maxamed isla wararka dhibaatada ka dhalatay coronavirus aynu ku guda jirnay tan iyo markii uu cudurkaasi ku baahay dunida siyaabo kala duwan ayuu saameeyay qaybaha kala duwan ee bulshada sidaad maqlaysaan dadka danyarta ee ku nool jamhuuriyadda gooni istaageeda ku dhawaaqday ee Soomaaliland waxay wajaheen culays ka dhashay xanuunkaasi waxaana ugu sii daran dadka markii horeba lixaadkooda uu kala dhinaa ee naafada dhawaan ayaa ahayd markii xukuumadda Soomaaliland ay shaacisay in ay raashin siin doonto qoysaska danyarta arrintaas oo haatan ay ka cabanayaan in qoondo ku filan aanan laga siin naafada arrintaasna waxaa u kuulgalay warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa Cabdullaahi Jaamac waqtiyadan dambe xukuumadda Soomaaliland waxay bilowday inay dadkii uu dhaqaale ahaan waxyeelada ku soo gaadhay coronavirus ay isu diyaariso inay u qaybiso raashin ay ku taageerayso noloshooda cabashooyin ayaa ka soo baxaya haddaba dadka naafada ah waxaa jira haween iyagu haysta caruur naafa ah ama iyaguba naafa ah oo markaasi noloshoodu cidhiidhi gashay wallaahi anigu waxaan odhan karaa Cabdilaahow xaaladan hadda jirta ee COVID-19 awii dadka naafada ah si weyn bay u taabatay xaaladda haweenka naafada ah ay ku sugan yihiin waxaa ka hadlaysa Xamda Cabdi Sogsog oo ah wariye ka hawlgasha mid ka mid ah TV-yada afka Soomaaliga ku hadla ee ka hawlgala magaalada Hargeysa ahna gudoomiye xigeenka ururka hablaha aragga naafada ka ah ee Soomaaliland markii hore iyaga oo bulshada ka dambeeyay guryahana lagu ilaaway waxa laga yaabaa boqolkii qof ee naafada ahaa inay 10 qof ay maxay shaqayn jireen 10kii qof ee shaqayn jireen shaqadii ay ka xirmatay bandoogina ay galeen iyaga oo ay gaadhayba xaalad ay iibsan kar laayihiin qalabkii laga hortagay COVID-19 ee ahaa maasaskii iyo galoofisyadii dawladuna aanay ka warhaynin marka iyagoo go'doon hore ugu sii jiro guryaha ku jiray intoodii dhaqdhaqaaqaysana markay bandoogi galeen ee xaaladuba waxay isla noqotay Cabdilaahi ugu rojan bay isla noqotay waxaan arkay dad naafa idinku caawinaya idinku naaf ahaan isu kaalmeynaya maxaa dadkaasi ku caawinayseen wallaahi Cabdilaahi anagu hadaan nahay hablaha aragga naafada ka ah ee ku midaysan ururka Tafbalan Garalis waxaanu go'aansanay markii aanu aragnay xaaladan jirta ee COVID-19 awgeed inaanu kala qayb qaadano caruurta waalidiintood bandowga ku dhacday ee magarnaysa shaqooyinkii laga joojiyay siib ahaan caruurta aragga naafada ka ah marka anagu ka urur ahaan anagoon taakula ka haysan xagga dawladda kana haysan hay-adaha caalamiga waxaanu go'aansanay inaan anagu jeebkayga intaan isu tagno haddaanu nahay hablaha aragga naafada ka ah ee jooga dalka dibadiisa iyo in ka mid ah hablaha aragga naafada ka ah ee jooga dalka gudihiisa kadibna aan anagu wixii kayaga aanu kala qayb qaadano daahir jaamac diiriye gudoomiyaha ururka naafada Soomaaliland waa qaar ka mid ah ururada madaxa bannaan ee Soomaaliland naafadeeda matala waad maqlaysay Xamda Cabdi Sogsog dhibaatada ay ka sheegtay dadkii naafada ahaa xanuunkani wixii uu ku soo kordhiyay bal waxaad ka warantaa culayska dhinaca waxbarashada haddii adiga aan ku weydiiyo markii waxbarashada ay noqotay in iskuuladii ardayda laga fasaxo oo loo baahdo in mobilada smartphone-ka loo yaqaano wax laga dhigto iyo waliba in TV-yada iyo laydhka iyo la isticmaalo oo marka ardayda guryaha waxbarashada uga socoto dadka naafada ah maxaa ka soo gaadhay taa Cabdilaahi dhibaato fara badan ka soo gaadhay dadka naafada ma awoodi karaan inay sayfsadaan smartphone ma awoodi karaan inay sayfsadaan computer ma awoodi karaan inay TV ay ka kala socdaan casharadii markii hore waalidkoodu wuxuu la daaladhacay fiiga iskuulka oo aanu iskala bixin karayn kooda meherad yar haystaan xilligan uu ku jiray waa meheradu ka baabaday dadka naafada ah 80% wax ku dulnool yihiin dadka kale kuwooda wax dhalay ubadkoodu ma helaan waxbarashadii ay heleen caruurtii uu saameeyay COVID-19 ee guryaha ku xareeyay waxbarashada ay heleen ay ku qaateen qalabkan casriga ee la gaadhay iyagu may qaadan oo way ka hareentaana waxaad ka warantaa daahirow iminka Soomaaliland waxa laga bilaabay oo xukuumaddu ay bilowday in qoysas fara badan oo danyara ay gobolada raashin ugu qaybiso naafada intee kaga jirta madaxweyne ku-xigeenka waan la kulannay waxaanu ka codsanay inuu ballan qaadiyo xukuumaddu 40,000 oo qoys inay raashin siinayaan waxaanu ka codsanay in boqolkiiba ay 10 siiyaan oo ay dadka naafada ahi aan cidna xaafadna wax loogu darin cidna waxba loogu dhibin qof kasta oo naafa ah wixii la siinayo kii meheradu ka baabadayna meherad loo furo iyo
oo gacanta waxiisa loo geliyo karaashin la siinayana raashinkiisa gacanta loo geliyo taana waxaan burmaan kala hadalnay madaxweyne ku-xigeenka wuxuu nagu yidhi wixiina gaar baa laydiin siinaya laakiin hadda waxaad moodaa in wixii la bilaabay iyadoo aan naafada wixii ay lahaayeen gobolada iyo degmooyinka iyadoo aan wax cad loo sheegin oo loona waxaasaa ku leeyihin hargeysa oo kale waxaa la bixinaya 11 kun oo qoys 11 kun oo qoys waxaana lagu yidhi waxaa ku leedihiin 250 qoys marka waxaan leenahay dee saamigaasi madaxweyne lama qabto ma leedihiin waxaan filaynay in 11 kun oo qoys ee hargeysa gudaheeda lagu qaybinayo ama maroodi jeex in kuna la siiyo haddii kuna la awoodi kari waayana in 500 la siiyo waxaanu filaynay 40 kun oo qoys ee ay xukuumaddu ay wax siinayso in 4 kun la siiyo 4 kun dib loo waayo in 6 gobol mid walba 500 la siiyo codkaasina wuxuu u dambeeyay warbixintii Cabdilaahi Jaamac oo ka soo diray magaalada Hargeysa. warar kale ayaa inoo soo socda balse markan saraakiisha qaramada midoobay oo ku sugan gudaha waddanka Liibiya ayaa sheegay in ay soo gaareen warar sheegaya dhac iyo burbur hantiyadeed oo ka dhacay deegaanada ay dhawaan la wareegtay dowladda ay beesha caalamku aqoonsan tahay. qaramada midoobay ayaa sheegtay in khasaaraha hanti ee ka dhacay laba magaalo oo ku yaal koonfurta magaalada Tripoli caasimada dalkaas ay u muuqanayaan fala argoosia maleeshiyaadka dowladda gacansaar kale leh oo Turkigu baritaaro ayaa dhawaan waxa ay aagaasi ka saareen ciidamada daacad u ah dagaal General Haftar Khalifa Haftar hadaba khadka teleefanka ayaynu kula xiriirnay Dr. Axmed Sheekh Maxamed Tiir oo ah khabiir ka faallooda arrimaha caalamka carabta iyo islaamka ee Cabdirasaaq Xaaji Catoosh ayuu u waramay. Khalifa Haftar jigtan ku dhacday waa jug la saadaalinayay muddo dheerba. Khalifa Haftar waa in ciidan ah oo ka soo qayb qaatay inqilaabkii 1969 qadaafi uu sameeyey barigaas uu ka mid ahaa ciidanka waa nin caqligiisa ciidan iyo inqilaab iyo xoog in wax lagu qabsado aaminsan dowladda liibiyana waa dowlad qabaa'il oo kala burbursan marka nin intaa yimaado xoog ku qabsan kara ma jiro marka isku dayidaas oo uu uga dayanayay cabdifataax siisi masar go-aankii koowaad uu soo saaray oo u ekay asagoo kale ayaa waxaa ka muuqatay inay arrintan horey u socon karin marka meeshaan la yiraahdo Liibiya waxaa ku tartamayo quwado fara badan waana la kala adkaaday sida muuqata hadda dhinac waxaa ka jiray Masar Imaaraadka iyo waxaa ka jiray dowladahan khaliijka ee Sacuudiga ay kamid tahay iyo Faransiiska iyo Ruushka oo aad ugu jiray dhinacna waa Turkiga iyo dowlado kale oo reer galbeed iyo Qatar marka waxaad moodaa in aakhirkan lagu kala adkaaday oo dhinacan Turkiga oo awood xoog lagu soo galay oo maslaxa khaas ah ay leeyihiin oo xuduudda badda iyo khayraad badan oo ka dhaxeeyo calaaqo dheer ay dowladda Cusmaaniyiinta ay Liibiya ka dhaxaysay moodaa inay xoog u soo gashay marka taa ayaa laba sabab asaas ah Turkiga wuxuu ku soo galay iyo isagoo lahayn shacab taageeran ninkan Haftar oo xiisa xoog ku haystay labadaas sabab ah ma laga yaabaa marka haddeer jabkan ku dhacay inuu noqdo kama dambayntii ninkaas looga taqalusi lahaa isaga iyo ciidankiisaba way u eg tahay inkastoo siyaasaddu ay u baahan tahay intaan in ka dheer waqtigan uu baahan yahay si loo galo shalay Masar ayaa si fiican u soo gashay wada hadal dheer ayaa dhaxmaray Haftar iyo nin xaqiila iyo ninkii Cabdifataax Siisi ahay waxay soo saareen baaq siyaasadeed oo diidi doonaan qolyahan hadda wifaaqa la yiraahdo oo kule ciidamada Haftar oo madaxda ka yahay hubka lagu wareejiyo waa wax la yaab loo ninkii guuleystay ayaa la leeyahay wareejiyo hubka ku wareejiyo ninkii laga guuleystay waa caqli ayna yeeli doonin dowladda wifaaq marka waxaan u maleynayaa hadda in ninkan uu miisaankiisa aad hoos ugu dhacay Liibiyana dagaal laguma dhamayn karo wada hadal ay noqon doontaa laakiin miiska siyaasadda uu soo fariisan doono miisaan weyn kuma yeelan doono Haftar haddayba ogoladaan qolyahan wifaaq inuu la fariisto in miisaan weyn ma noqon doono waxaa la isku wada waafaqsan yahay horta dagaalka Liibiya inuu xabad iyo dagaal uu ku dhamaani doonin oo aakhirka loo baahan yahay in siyaasad la galo kaas waxa uu Dr. Axmed Sheekh Maxamed Tiir oo waramayay waryahayaga Cabdirasaaq Xaaji Catoosh bal ciyaarihiintan aan gelin bilowgii toddobaadkan ayay ahayd markii madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu ku dhawaaqay in goobaha waxbarashada ee dalka ay sii xirnaanayaan tan iyo bisha September ee soo aadan muddadaasna ay ardaydu casharadooda iyo macluumaadka waxbarashada ay kala sii socon karaan dhanka internetka inta badan ardayda Kenya oo ay kamid yihiin kuwa Soomaalida ayaanan heli karin baa leeyahay adeega internetka iyo qalabka kale ee casriga ee waxbarashada hadaba Cabdisalaam Sheekh Maxamed waxa uu xubin ka yahay guddiga tacliinta ee deegaanka Gaarisa saameynta Soomaalida reer guuraaga ardaydooda soo gaari karta ayuu uga waramay waryahayaga Samiir Cabdullaahi Jaamac
waxa weeye xaaladda guud ee waddanka iyo adduun weynaha bay arrinta ayay la xiriirtaa marka tacliinta sida runta ee arrintan cudurkan coronaviruska mas covid-19ka aad bay u saamaysay maxaa daaray taqriiban haddii aan fiirino ugu yaraan 6 bilood bay ardadii akhriskii ay kadib dhacayeen sanadkan 2020 marka laakiin haba ahaatee kolba daruuf baa keentay in arrinta ay dib dhaca uu ku imaado marka waxaan ka arkay in hadda madaxweynaha uu soo jeeday uu yiri bisha 9aad sida hadda ka muuqato in iskuulaha dib loo furi doono haddii aan kulli la furin qaarkood la furi doona saas ayaa hadda yaa ka muuqata sida hadda khudbadiisa ka akhri muddo kordhintan la sameeyay oo ilaa iyo December gaaraysa soo dib u dhac uma keeni karto ardayda aad bay dib u dhac u tahay sidaan sheegay bisha 3aad iskuulaha la xiray ilaa bisha 9aad waa 6 bilood taqriiban arday waxaa jiraan 8aad oo imtixaankii ugu dambeeyay oo maaragtay dugsiyaha hoose maaragtay primary-ga sameyn lahaa arday waxaa jiraan form 4-ga secondary-ga sameyn lahaa ardayda iyada ee sida runtii manhajkii aad buu uga jaha wareeray iyo dhammaanba ardadii masalan fasal ka gudbi lahayd cunugii fasalka 5aad ahaa u gudbi lahaa fasalka 6aad miskii 3aad oo 4 u gudbi lahaa barnaamijkii oo dhanba hadda waxaa weeyaan jaha wareer baa ku dhacay laakiin haddii daruurta ayaa keentay sida muuqato waxaana aaminsanahay kolba dawladda hab arrinta iyada ee lagu asaxo inay la keeni doono sifa ardadii manhajkoodii ay u kaamil yeelaan sanadkii loogu talagalay imtixaanaadkoodana ay u sameeyaan markay manhajka ay kaamil yeelaan kadib madaxweynaha khudbadiisa waxaa ka mid ahayd in casharada ardayda ay kusii qaadanayaan ka dhanka iyo internetka dad badan oo waxaa jira reetabreed ah oo ama internetka heli karin ama qalabkii ama laptop ha ahaada ama computer ha ahaada aan heli karin kuwaas iyagu maxaa la gudboonaan karaa arrinta ra'yigaas waxaa weeyaan ra'yi aad ugu culus kenyaanka sababta waxaan dhihi karaa 80% waxaa suurtagal ah inay heli karin internet iyo laptop iyo iPad iyo smartphone-ka waxaan la yidhaha waxaasoo dhanba marka waxaan u arkaa waa ra'yi la soo jeeday laakiin ra'yi kenyaanka maaragtay ayadu wada qaabilaynin inuu yahay oo fikradda laga lahaa aan lagu gaaraynin inuu yahay oo ay u suurtagelaynin inay tacliintii ku gutaan habkaas marka kolba hab kale oo fool sidii uun lagu heli lahaa waqtigii muddada markay dhamaato oo iskoolaha dib loo furo in la hela ayaysan huraynin sifa ardada ay manhajkooda ay u kaamil yeelaan waa tahay arday waxaa jirta reemi ah ama xoolo dhaqato ah oo iyagu meelo fogfog kaga yimaada inay wax bartaan sidoo kalena aan heli karin teknolojiyadda ama aan heli karin telefoonno iyo wixii la mid ah marka kuwaas sidee ula jaan qaadi karaan ardayda magaalooyinka joogta ee heli kara inay YouTube galaan ama ay casharadii online ku raadsadaan waa arrin saan sheegay aad iyo aad u adag suurtagalnimadeeda ardada iyada ee fursadaas ma heli karaan umana malaynay in waddanka hadhow lagu qiimeyn doono waqtigii iskuulaha ay xirnaayeen in manhajkii ardada inay saa ku kaamil yeeleen in lagu xisaabtami doono uma malaynay waxaan aaminsanahay markii dib laiskugu soo noqdo kii online ku akhrisanayay iyo kii ka maqnayba in maaragtay dib meeshii ay ku joogsatay laga soo bilaabi doono sifa ardada ay hal safxad u wada imaadaan oo iyagoo siman markaas hadday imtixaanaad yahayna ay ku galaan haddii fasal kale loo gudbi lahaana saas baan aniga ayaan aaminsanahay cabdisalaam sheekh maxamed ayuu kaasi ahaa oo samiir cabdillahi u warramaya bal markana facebook aan fursadda siiya ee waxay ka soo warrameen qaar ka mid a dhegeystayaasheena xayiraadaha socdaalka ee dhadhaab ismaaciil macalim hureyra oo hobyo jooga wuxuu leeyahay xayiraadaha socdaalka ee ka dhashay fayraska corona ee saameynta dhinacyada badan ah ku reebay ganacsatada iyo dadka caadiga ee xeryaha qaxootiga dhadhaab runtii waa arrin saameynteeda leh islamarkaana qayb ka ah saameynta cudurkaasi caalamka uu ku reebay dowladda kenyana waxaa looga fadhiya in dadkaasi ay caawiso cabdulaahi jaamac ogle oo burco ka soo qorayn wuxuu leeyahay xayiraadahaasi socdaalka ka dhashay caabuqa covid-19 saameynta xooganna ku reebay ganacsatada iyo dadka caadiga ee xeryaha qaxootiga dhadhaab waa mid walaaceeda leh waxaana loo baahan yahay sidii arrintaasi loogaga gudbi lahaa ciyaarihii haddii aanu eegnana raxim stalin oo weerar kaga dhila kooxda manchester city iyo xulka ingiriiska ayaa sheegay in haatan uu taageersan yahay dibadbaxyada ka dhacaya u k ee laguga soo horjeedo cunsuriyadda madowga dadka loo geysanaya intaa ayaan waqti u helnay oon kusoo gogoynaya idaacaddii subaxnimo waxaynu ballan labada duhurnimo inta ka horeysa sidaas iyo nabadgelyo